الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كلمة موعظة maanta halkan aan ka soo jeedinayo waxay ku qotontaa aayadaas aad maqasheen ee suuratul Hadiid ku jirta. miyaan la gaarin waqtigii quluubteen ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xusuusan lahayd oo u khushuuci lahayd oo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu akhrinayno aayaadkiisa naqaano oo xafidsannahay ay u khushuucdo oo Ilaahay u noqoto. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka quluubtooda ayuu eegaa, ma eego sawirkooda iyo jismigooda iyo dhismahooda, ma eege camalkooda iyo qalbiyadoodu eegaa. sidaas darteed ayuu leeyahay alam ya'ni lilladhiina aamanuu an takhsha'a quluubuhum lidhikri illah. miyaan la gaarin kuwa iimaanka sheeganaya mu'miniinta ah in qalbiyadoodu inay u khushuucaan, u duloobaan, isu bihinbihiyaan, u soo joogsadaan, u soo hogtaan, u soo rujuucaan, u soo istaagaan kitaabka Ilaahay iyo aayaadkiisa. miyaan la gaarin waqtigii ay hirgelin lahaayeen, miyaan la gaarin waqtigii ay dhihi lahaayeen kelimad waaxida, sharciga Ilaahay iyo kitaabka Ilaahay waxaan ahayn ma ogolin, mana ku soconayno, Ilaahayow markhaati ka noqo. cid wadata wax kalena ma ogolin, Ilaahayow markhaati ka noqo. waqtigeedii miyaan la gaarin? waaba dhimanaynaa habeen iyo maalin, miyaan la gaarin? waaba laynoo sheegay qiyaamaha waxa dhacaya, miyaan la gaarin waqtigii marka qalbigeenu uu khushuuci lahaa? miyaan la gaarin? kelimadda koowaad waa naftayda iyo shacabka ila midka ah ee malaayiinta ah ee Soomaaliyeed ee kelimaddaanu ay gaarto. miyaan la gaarin walaalayaal dad yahow muslimka ah ee Soomaalida ah ee ahlul qur'aanka ah ee ahlul iimaanka ah ee ahlul diinka ah, miyaan la gaarin waqtigii qalbigeenu soo noqon lahaa, khushuuci lahaa? mase kuwii hore oo kitaabka inta loo soo dejiyay qalbigoodu inuu khushuuco ku khushuuci waayey oo qalbigoodu adkaaday oo dhagaxa noqday, dhagaxa ka adkaaday, ayaynu la mid noqonaynaa oo Ilaahay noo sheegay walaa yakuunu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu. iyagaba kitaabka waa la siiyey, waa loo soo dejiyey, kitaab lagu khushuuco baa loo soo dejiyey, towraat iyo injiil baa loo soo dejiyey, sida inaga qur'aanka kariimka ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoogu manaystay. faqasat quluubuhum, way ka qalashay, way ka jeesatay, way ka dhaga adagtay, qalbigooda engegay. faqasat quluubuhum fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa. dhagaxay ka adkaatay, buurahay ka adkaatay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaas ayuu lacnaday, raxmadiisiina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka fogay. marka ciddaan u khushuucin kitaabka Ilaahay waxaa halkaa laga qaadanayaa in raxmadda Ilaahay ka fogaanayso oo ka durkayso. marka raxmadda Ilaahay si aynu u mutaysanno, war waa inaynu kitaabka Ilaahay qalbigeenna waqtigu u khushuuci lahaa miyaan la gaarin? 30 sano ka badan ayaynu dibadda meeraynaa, 40 sanay ku dhowdahay, dagaallo, qax, abaaro, layna tus aayaad. ma sidii qowmu fircoon oo kaleeta qalbigeennu adkaa? Ilaahay subxaanahu wa ta'ala 9 aayadood buu isu raaciyey oo calaamadood qowmu fircoon qalbigoodu khushuuci waay. war kitaabka Ilaahay baa laynoogaga sheegay, walaqad aataynaa آل فرعون 9 آيات، موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل. 9 آيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أي لبسوا تجي سيال آيات محي سمي فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. واحد ملايين إنسان وما لها كلاتو إلا سيي حصانت إن أنا إيه وسلا سوكر نقوم كريم. نعم وين نقوم كريم حصانت عدها يستمر.
عمل كعدة يسكشبهان اسكو مد بين قنيا ساس درت بو إلهي ليه ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل هنقولون السدود يكون هرا كتاب اللوسي يضيعين فطال عليهم الأمد غفلتي با كل داراتي من نجنا ما غفلتي با إنه داراتي ميان لجارين وقت جينا قرن لهين والكتاب كإلهي كليه بانو كوكونا إستجعنا اسكو حكومينا وروحي أنك نجد حي قبائل هدانو نهاي ولا ليه هي سومالي با إس هي ستا والكتاب كإلهي بانو حيا كتاب كإلهي ينفك البحر هير قصحي هير قرعو ديق وحي نجد حي حوله وحي نجد حي دول وحي نجد حي خلاف وحي نجد حي عن كتاب كإلهي ينفك البحر أن تخشع قلوبهم لذكر الله محايدين ديدي كل جن واتكنيسا كل جن وحجنيسا كل جن وعمريسانيسا كل جن وزكينيسا كل جن واتكنيس محايدين ديدي كتابك إلهي إنا تكون قضان إنا يسوي كلا بحضان إنا هذه السجق كدقتان نظام كلا يدكوا كلا صار معلومة ويدين ما كتابك واحدين أخريا ويدين ما عيد يدكوا كلا حكون تاد ويدين ما كتابك بتقرن ويدين محين ودوهنا محين وفردنا تاسوا كلمة داسو إن السبب كسعت محاضرة دي حالنا قل هو من عند أنفسكم إن سببت كواد إن جتها فكاسم مش كلمة اللباد أما وعدي اللباد وحوي ملاحظة الصومالية دي سياسيين تودا يضدك الله يقانو إليت كودا إيه سياسة دي حكم كي يهرمود نمد الرادني حليه ألم يعني لقلوبكم أن تخشع لذكر الله هراد دساتير قال أدورته هراد أمة مسلمة أنت هرب ودين واحد ترى هذا كتابك إلهي وحنا هين بانكو حكومينا هراد هو الدين إلهي اللحدا سنه بعد ودين مالين بهير بيجوكتي مالين بميل بيجوكتي إلهي وادلقاتي والذي سيتدري لحدا سنوي إلى واقي قالكم كلك أنك كعب أو مدانو إلى درتي oo kab iyo ul iyo godin iyo waran iyo falaar waxay heli kartay ee ku dirtay gaal bay iska kicis kitaabki ilaahay bay tiri waa kana nagu xukuma oo nagu hogaamiya ilaa maalintaas waa diideen waa soo seeta dheeraatay way soo socotay 30 sano leeysi waa la isku xukumi waayay kadibna gurigii baa saqafkiisu idinku soo dumay gam waa idinku dumay صدّن يشان سنة هذا ودوسيه دول كويال ولا قاضي كري لا يا قاضي كرا هذان إلهي هنجد ميان لجارين وقت جي أذكر الله هيدين محان نجا قلدم ميان لجارين حكامة الصومالية ذي يوم مدح ذو ميان لجارين إنا ترى هذا وقت جي أذكر الله هيدين ومدان أمة مسلمة بقول كي بقول بيه يا أدي ذي كرا كتاب كذا إنه حكم يا دي ذي كتاب كذا إنه يسكو حكمته يا ديدي إن كتاب حكم النقض قولك إلهي إلا دقيستو كلمة إلهي إلا دقيستو بل إسكداية وحاد في رسالة سياسي الصومالي هديتها حكامته وين ماذا هديتها سياسيين هديتها بل ماشي اللي قصوا قليو كتابك إلهي يحمل دي صدقك حنبارسن ماشي اللي قصوا قليو فيه هدال حتى وحسكو قبطان علماء ميارتان وكتابك إلهي أميرتان وقف كتابك إلهي يقانا مصر دويستان دي بداد ميرتان شيطان بعض أتكتان ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هذه لا يرى كتابك إلهي كاره اللي يذكر الحكمة ساعد ما قادنا يسوع ساعد 1 hour ما قادنا يسوع إن اللي يذكر الحكمة أو وحي خلاف كتابك إلهي اللي يذكر الحكمة هدرتن بيرها الصومالية مركي استريران ضدك قبائلكم مركي استريران أو علوم الدحقة شبل إنكم في ريا ساعد ما قادته ولا كلا حكمة كتابك إلهي بنا بوك الصحراء وحي بيجي لنا والله كلا حكمها قناع سادس كوكب سلام ساعد الله كلا حكمها سياسة إيه أمر إيه حكمنا ساعد الله كلا طوري كرا والله كلا حكمي كرا لكن يا أقول والحكامة الصومالية دي والمدح ذي والميان لقارن وقت قلبك إنه هالمرؤوس يستاجلها والأمدان صدّن كالسنة الدولة الآن
soddonka sano amni la'aanta ah sababta ugu weyn idinku aad leedihiin dhulkeedii ka cararaysa oo ku nabadgeli la oo wadooyinkii mari la oo jid aad u samayn la'dihiin soddonka sano oo waxbarasho aad u samayn la'dihiin oo caafimaad aad u samayn la'dihiin oo wiilka bajaajta ah cashuurta aad ka qaadaysaan ee wada ee magaalada dhex meeraya quutalyoonka raadinaya ee la rabay noloshiisa inaad idinku soo saartaan cashuurtana ka qaadaysaan wadana idinaan u samaynayn gabadha miskiinta ah oo yaanyada jidka ku gadaysa oo carruurta 8 ah korsanaysa oo la rabay idinku inaad mushahar siisaan oo dhulkeeda ay karaamo iyo sharaf ku lahaato mas'uuliyaddii aad u dhaarateen ah waxba idinaan ka qaban oo shacabkaanu idinku sagarsan yahay oo idinku aamusan yahay oo idinku dulqaadan yahay magaciisii iyo sharaftiisii oo aad disheen oo adduunka meel laga aqbalayo waraaqaha u wato aqoonsiga aanay jirin oo uu sidaas 30 sano idinku dulqaadanayo inaad kala iibsanaysaan mas'uuliyaadkiisii iyo ammaanadiisii oo dollar ku kala gadanaysaan habeen iyo maalin indhihiisoo shana oo la idinka aamusay miyaan qalbigiinnu naxdin soo naxaysa lahayn intaasaad waxaad ku daraysaan haddana maanta inaad habeen barkii wax adduunku ku qoslo dadkiinnii ugu sarreeyay ee mas'uuliyadda ammaanada dadkan u dhaartay iyaga oo sidaa u dhibban oo carruurtu dhibban tahay oo hooyooyinku dhibban yihiin oo dhiiggiisu dhulka ku daadanaya habeen iyo maalin oo qarax aan cidina isu raacihayn kumanyaal ay dhimanayaan oo cid isweydiinaysa aanay jirin kumanyaal ay cudur u dhimanayaan oo cid isweydiinaysa aanay jirin 1 bilyan India iyo Dubai la geynayo oo aan dalkiisii aanu xabad kiniin ka heli karin iyadoo intaas oo dhami jirto inaad haddana dushooda ku dul feegaartaan oo dushi shacabkaas ku dul feegaartaan oo waraaqaha hawada isu marisaan oo wax laga xishoodo oo laga yaqiiqsado mas'uuliyaadkiinni intaa gabteen aad ku dartaan wax laga xishoodo oo lagu qoslo oo adduunku qoslo waxaan maqlaayay shalay nin siyaasi ah madaxweynaha Afrika oo leh siyaasadda Soomaaliya waa AIDS bay qabtaa AIDS siyaasi qabtaa yani daawo ma leh waay saas adduunku idin arkay Afrika dariskiina ayd basa idin arkays war miyaydinaan ilaahay ka xishoonay war miyaan la gaarin waqtiga ilaahay ka xishoon lahaydeen war aamusna oo shacabkaanu idin dulqaad dhiiqu ku dhex socdaa dhexdiin nabadgelyo uma mari karo wadooyinka ka xiran jidadka goboladiisa isuba gudbi karo wada uma idinaan samaynin adduunku waa idin daawanaya waa idinku qoslaya mas'uuliyad iyo ammaano idinka la idin dhiibay ogolaasho idin siiyay waa idin saxiixay wax walba sameeyo idin yiri waxna kama idinaan soo bixin waxaas ugu daraysaan haddana isqabqabsigiina iyo kala iibsigiina iyo jagooyinkiina iyo masaalixdiina kaliya inaad idinku ku dirirtaan oo jagooyin ku dirirtaan oo ashxaas ku dirirtaan oo magacyo ku dirirtaan wax loo dul qaadan karo ma wax ilaahay aqbali karana ma ilaahay ka xishooda oo waxaan idin leeyahay aslihu daata baynakum inta fursad idin jirto ittaqullaha ilaahay ka baqa madaxda Soomaaliyeed oo dhexdiina waxa yaala ilaahay ku islaaxiyo oo ilaahay u soo noqda anigu taasaan idin leeyahay كلمة الصدحات وحوي إلهي سبحانه وتعالى الدون كان وحكود السي عدالة ظلم إلهي نفتي سوا كحرم يمنع أقره يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هايش ظلمنا نفتي ذاك حرم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن الله لا يحب الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين ظلم يقول ماشي جوجه هلاك بجوجه عدالة ماشي جوجته رحمة يا النحريس إلهي اللي جرك إلهي بجوجه إن الله يأمر بالعدل والإحسان dhiiga dadka Soomaaliyeed muddo daadanaya qaraxyo boqolaal ay ku dhinteen meel loo raacday ma jirto yaa mas'uulka ah siyaasiyiinta iyo dawladda mas'uulka ah xagee loo raacday dadkaas dhiigoodu xagee dhacay
ما جرتو كومن يال أيا غوريغود إسقو كسو بحي أما مساجد كسو بحي للدلاه إسقو إلهي وأشتكونا يوتقع ديجي ميل وراء عمره ما سيداسو صوماليا ديجا مسلمكا توحيد سنية إلهي سبحانه وتعالى توحيدك أقري رخيص وقوية إلهي أكتيس رخيص كما هي وقاعدة ماذا يسمى إلهي أكتيس رخيص كما والله يدين أرورينا يا صومالي أردن وحكام تهذا إيه مدح هذا إيه سياسيين تهذا يقوه الريان بالله أرورينا يا هل مربى لجملين يا إن الله يمهل ولا يهمل إلهي ليسكي ساحوك مطولان لكن وأكادية وذلقات بنية قبل هذا أرنت هذا أي عالم كأردن نقطي حال لا يا هاي ما هكذا قد واحد أنت واصح لكن إلهي سبحانه وتعالى حكمت بكل يهي قبل داس صومالي لا مسلمات أهي إن دي جذو ما أنت نقضه وح أرنتان قرحية إنه نقضه أو سياسيين تي كشفة ومسؤوليات كشفة أو ظلمك كشفة أو ديك بدنو مسلم أو داتا كشفة أي إلهي كل يهي إكران معها كل جذو واحد أنت لكن حكمة با إلهي كل يهي حلنا هاي أرنتاس وأرن وين وإلهي سبحانه وتعالى ودبتشوك ولا إناني نقرين أرن عيار الله كرته بقول العلماء زهاد مسؤولين وزراء حلمانا ما قاعد انت دي قول دولك قداتي او وحبا لغا هيني ما حدا اي حكمه ما يسوي ديسن مانتا انه الهي كشفه او بنانك سو سارو دلك غبدا ير يا سوماليدا حكمه با كدميسا waxaan idin xusuusinayaa inay dhacday zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam nima saxaabaha oo ciidan u diray سي ابن ماجه صحيح سنن كيس صحيح القوري حسن حديث حسنه اني بحال نمن قالها بي لا ديرين markay la dirireen baanin markii waranka lagu keenay laba nin ba waranka ku keentay markuu waranka arkay ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nina waa ka istaagay nin ba ka istaagay markuu saasir ninkii kale warankii ku kaxay سوى لا إله إلا الله ويصون نقضين قصة بقى النبي عليه الصلاة والسلام الله شيء حكم النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد شيء يسوى لا إله إلا الله لا مية شيء رسولك الله وكوك بهنا ورما واحد شيء يسوى لا إله إلا الله يري واسيد قصة أسامة أوكله رسولك الله دم بدافع إلهي يويديه وكان مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد شيء isagoo la ilaaha illa allah yiri miyadish sidii baa dhacday ninkii ayaama kadib uu dhintay waa la xabaalay markii la xabaalay ayaa subaxdii waxa la arkay meedkii banaanka yaal hay siraahdeen waxba bahal baa qoday meel wax kale ku xabaaleen xabaashi bay dheerayeen waa ku celiyeen subaxdii waxay arkeen isagoo banaanka yaal mar saddexaad ciidan bay dhigaan ilaaliyaha caaw oo dab halkan ka shita oo bal qabrigan waxa ka dhacaya fiiriya hurdoon baa hadhow qaaday nimankii meydkii banaanka yaala subaxdii la arkay nabiga calayhi salaam baa loo sheegay wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam dhulka waxa ku jira buu yiri ninkan dad ka shar badan baa dhulka ku jira oo dhulku aqbalaha laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu idin tusayay حرمة وليا ديك مسلم ديك مسلم عيار ما كبدا هذا أرنت هذا تاجنت هاي ديك وين كعيسية قد يده ماشي أي مرة يساعد أكتهين مال عدلا مدة عيسو وحي إلى تهاي ديك سين إلهي دبص الله إلهي سبحانه وتعالى وحو دبص عضنها عد بدبادين كرتا أما هر استاقي كرتا مجرتو حكامة الصومالية وحان لانهاي قبل داس إيه إهل كيدي وحي رمزي أطاهي تصالي وحي أطاهي ملايين صومالي وحي تقولك هستيدو كجره بي أرنتيدو كاكعينيسا عدالة هلا وحق هلا تحقيقي هلا بارو عدة يكو عداتنا محكمة دادا هلا كمرسيو عد هر استاقتا يجرين
عدي هر استاغتا إلهي سبحانه وتعالى إني هر استاغيسو ها أوغاتو وعد إلهي لدق على ما يسعد هر استاغتا ديغا إكران معها ديغا قبر كلية أو ماشا أقول دمتين معها أو من لويسيه هذا دمتنا إلهي أو نحرسته معها وبقول الله كن أو صوماليه ديغو مقيه هاي بالرمس وطاي بلو وين وطاي لعل إن النقطة ماشي قلبي صومالي وكسر نقول الله تاسنا وحن ليها إلهي سبحانه وتعالى قبل داس يهلك يدد كذا أينية عدالة الأمم هنا الله بارو النبي عليه الصلاة والسلام مركي لقى الشفاعة قاضي قبل غير قريشة أو حضي وقعنت الرئيل لقى جويه ودتك ودد وجد على أتجن وأسامة أتجن وحكويري أتشفع في حد من حدود الله أنت وجهك يسبدلي النبي عليه الصلاة والسلام ورما حد إلهي أياد دونيسا إن تكشف عقد وأظهر استكتو ساس درتد أيوكو يري والله النبي عليه الصلاة والسلام كما أنا خصبانين إنه بارتو لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها عدالة المسلم ساسوي عدالة الإسلام ككتاب كإلهي اللي الله النقضة وقلبي إنه أخشوعه تاسوي عدالة قفك وين مجرى قبل النبي محمد كانت كقول لها هذه ما أنت واحد لها حاشا لله إن حد لكن وتصالح سيد صومالي ترى ويش قال دبوا كوقست كوقصو مركا تاسنا فرين تاس يا ندر يا مدحد الصوماليين وحنا ليهي إلهي كبقى أو دحدينا إصلاحية نجنا حشوضة أو إلهي كحشوضة أو ضدك أدونك جو كحشوضة وحن دولة ما أهين أو شرف أهين أو مجع نوع أهين أو أدونك نجو قصرنا هالسميننا وحين هوس السميست عدات سميست نيسان إلهي سبحانه وتعالى كتابك يسوع النقضة أو علماء يد كتابك إلهي كوكلا بحر أو محكمة إلهي إمادة هدا ديدان صوماها فلا تأس على القوم الفاسقين أيائد سويسا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أصلح حكامنا وحكام المسلمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة لك من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة